فيرها برير ما أقاني سوي حق صنهين لكن أنا هويدي يو سعاد وهويدي أنا قبل كانوا يسافر ست سمسم لها إلا يران تودي صاحبي أهم شرين محوها مال ما كم ده كويسة وغد صدري مسا عندها حسايدة كويسة الحمد لله. وي معاي أنا بس ولا أنا كودي ويساس الدين أنا محايد الدنيا ممكن صباح كودي ذا لحن تادي ديكو كل اللي بدري مسا وحرا إنه كل شيء وي محاي شيء هو هودي ذا هوي أنا وحنو سنة حنون كان حنون أنك كحاول ما يكون إن شاء الله هوي وكفر حرب إنه كل شيء ولا شيء سر آدم دي أكو شيء آدم آمنين سر محاي هوي هوي أنا جيدي waxaa ku sheegayaan ka dhaadhacaan waxaa jirtay gabar la dhaho سعاد iyo Sucaad walaashay ma ahan laakiin waxay walaashay ii qabanin ay ii qabatay Sucaad waxaa la dhahaa gabar saaxiibadeeda ah waxay degan tahay Nairobi Kenya gabadhaas waxay ahayd gabar maaragtay saaxiiba aan nahay kuleejka ayaan isla baranay dan waan markaan kuleejka ka qalin jibinay shaqo ayay heshay company ayay yeelatay aniga maalin maalmaha kamid ah aniga iyo reerkeena iyo isla socono accident ayaan galnay accident markaan galnay kadib waxaa dhacday reerkeena inay meeshaas ku dhamaadeen anigana indhihii aan ku beelay garabkay waxaa soo istaagtay Sucaad waxay isiisay iftiin indha ayay isiisay kadib waxaa dhacday iyadii inay dhowla iska dhigtay maxay sababta iskaga dhigteen waxay tahay aniga ayaa qiyaamay kadib waxaa dhacday wiil isla sheekaysan jireen oo daacad la dhihi jiray aad buu u qurux badnaa wiilkaas ayaa aniga jeclaaday aniga waxaa qiyaano kadib way ogaatay iyada indhoola meen ahayn indhaha gabar kale iga siisay laakiin waxay ogaatay inaan qiyaamayay iyada iyo hantideedaba kadib waxaa dhacday in maaragtay ay cafisay gurigeeda igu soo dhaweysay markay igu soo dhaweysay iyada iyo wiil kale oo isla shaqaysanayeen oo ilmaadeero ahaayeen wiilkaas waxaa la dhihi jiray Cabdullaahi wiilkii way isguursadeen ur ayay yeesheen intaas gurigooda ayaa ku noolaa kadib waxaa dhalatay adigu kumaanan dhalin kumaanan dhalin hooyo aniga kumaanan dhalin adiga way ugu ciyaarsan malaha may hooyo macaan way xanuunka ka keenay may runta ayaan ku sheegayaa aniga kumaanan dhalin kadib adiga ayaa dhalatay waxay ku bixiyeen Suhayla markay ku bixiyeen wali aniga ayaa ku bixiyay magacaas kadib waxaa dhacday ninkii iyada xiriirka beenta la waday anigana jaceelka beenta iyo amoore in uu adiga ku soo ataagareeyo oo adiga ku soo maaragtay si markaan ogaano wuxuu sameeyay iyo sirtiisa wuxuu damcay inuu adiga ku dilo oo dhaho labadooda hadii ay saaxiibo noqdeen ee mar labaad isla joogaan waa inaad ka taqalustaa gabadhaas yarta ah si aad uga guuleysato labadoodaba kadib hooyo markaa ogaaday maalin anigoo meel maraayo ayaa waxaa maqlay sidaas iyagu isagoo asxaabtii niman oo wato asxaabtiisa ah oo tuuga ah oo kuu soo diraa inay ku dilaan hooyada maalinkaas waxay aaday shaqo aniga ayaa iiga kaa tagtay markay iiga kaa tagtay hooyo waa kusoo kaxaystay aniga habeen madow ayaa kula soo dhuntay waa u sheegi kari waaye maxaa yeelay mar ayaan qiyaamo maxaa isdhaa Sucaad haddaa u sheegtid in gabadheeda la dil rabo amay ku aamini weydaa hooyo kula soo cararay habeen madow ayaa kula soo dhuntay waxaan kula imaaday Kambaalo meeshan ayaan kugu koriyay hooyo waa ujeedaas aniga xaaladeeda sidee marka hooyo maxaad hooyadii ugu sheegi weyday in adiga haysato intaas oo dhan hooyadii iga soo qad hooyo maxaa ku keentay intaas oo dhan 20 sano inaad hooyadii adiga qariso kula adiga soo korisay waa intaas oo dhan baad soo leekiisay xumaan wali ka maanan taban laakiin xumaan maxaan ka tabtaaba xumaan weyn baad ii geysatay hooyo macaan naftaada ayaa hooyada ka qaalisan hooyada sida u helaysa hadaada naftaada way macaan aadan ka taxadireenin gabadheeda ninkaas wuxuu iigu hanjabay inuu aniga idilaayo iyo adiga balabadeena uu idilaayo way macaan nafteena ayaan la soo cararnay Sucaadna ilaa hadda ma ogo inaa aniga
waxay ii malaysaa inaan qiyaamo gabadheeda aan kala cararo Amar maxaa u dareensiin weydin anaga taala joogno uma malaynaya inay hadda hooyadii ma garanaysa way tahay aniga ku siinayo sawiraanteeda ku siinaya sawir maan ku raadsan karaa Nairobi waad aragtinteeda adreskeeda gurigeed degneed hooyo way degan tahay sidaan jeclahay adreskaasa ku siinaya haddii gurigaas aad ka weysid waxaa ka helaysaa dadka gurigaas degay ayaad ka heli doontaa balse waxaa rajeynaya hooyada inaa heshid oo ujeeda in xaaladeeda aada ayay u xuntahay maanta hooyo garabkaaga ma istaagi karo hooyadani kulma kulansiin karo gabadheeda waxaan rajeynayaa hooyo inay cafisid inaa hooyadani cafis iiga dalabto maxaa yeele si xun ayaa u galay laakiinse hooyo waa ogtahay hal maalinna kumaanan qaylan kuma caananin si fiicanna waan kuu tarbiyeeyo oo gabadhaas maanta waxa barataad ilaa i jaamacad dhiganayso gabadheeda waxaa rajeynayaa inay cafisaan قاني waxaan ku hadlo yani hooyadii maanta ma raadsan karo way suxun badan walaahi safarta noo diyaari hooyo hadda waxaan sameeyaa may gabadheeda ducadeeda ayaa hooyo garabkaaga taagan oo kuu duceeyay gabadheeda sidaas hadhihin aniga hadda maanta ujeedaa waa xanuunsanaha garabkaaga ma istaagi karo laakiinse hooyo inta kugu caawin karo kugu caawinaya teleefonka ii keen hooyada ayaan ku tusaayaya فين هو هون حتى هو هاي وأكبري يا صبعي إن أنا رجلي أنا هواي حنوسين سكسر باكو دعي ويدي متى أبو سيسمسم مدمته نكو ما تعدا وبانا نركي تعبتني نرجعنا وبابي تعدا وبانا أقولكم من أنا زمزم
حصلنا مداعدة كده بي وعاد من داعدة كتب سمسمين مستعب صابر ما شاء الله دعيت هذا شعور بس كذا إلى نسوا عليه نسب المعياوي المعايات دار مقشوة فرح الصاير انت كبحتي معايا والله لما المعياوي لا ذاك خيره أنا يوم قايل كنت قد بينا سمسم قالت وين أقول قصي أنا وين هذا عايز كعب دايس الشام إلهي موقع كان أبو اوكي المعياوي وحيا قدوس السائل معك معناه بحنون كيوبي المعياوي إلهي كوسي الحنون كاغا بدل كيساش فرحت أنا أكسنت قال 20 سنة كوري هو 20 سنة دي قالت هذا ما هكذا في سنة كاملة jeclahay inkastaan kusoo suureen hadda gurigiina joogtaa noloshaan adiga iskale gurigan curadiisa taa iftiinka gurigaan taa farxad la-aanta maxay tahay hooyo simsim baa maxay sii walaay simsim qof wanaagsan mid ma ku weydiiyaa wixii dhan waa iiga soo sheekaysay maxay ii soo wiciweeday mar walba way muxuu ahaa mar walba waxay dhihi jirtay say adi mar walba kusoo xasuusan jirtay maalinkii u dambeysay ay dhiman doonto oo ay kaa sheegtayna waxay ugu tiri dan iyo duruuf darteed baan la hadli lahay adigana nafsadaada saan usoo macnaha waana kuu badbaadiyo ayaan kuu soo dhaweeyay oo kuula indalkaa marka walaahi simsan aniga isheeda iyo habaarkayga habeeni maalin la habaari jiray maxaa way ku abaar qof fiican bahay walaahi bilaah ilaa hadda wanaageedii baan sii xasuusanayaa dadka wanaageeda xasuusto isku waa dareemi kartaa qof markuu qof u baahan yahay adigoo naaskeyga nuugeysa ku xada balan waxaasa ah ninka ani iyo adiga iyo samsamna kala fogeeyey inuusa adduunka samsam wax ani markii sheekadii iga sheekeynaysay samsam waxaan ka dareemaynahay qof daacada oo wanaag doonayso oo aysan ahayn qof ilmaha yar ani ahaan aan ila baxsanin malawaya hadda hooyadaana ducaa u sameynaynaa waana ku jeclahay waa iyada hadday kusoo tarbiyeysa tarbiyad fiican ay haysataan waayo maxaad isku dhegeysanaa kan keliya maa qol dhan wixii nimcay loo gedi jiray in la eg aan kuu gedi jiraa kuugu jirto hadda ma garanayo furihiisa meelu yaal nimcay ayada markay imaadaan arkayna qurux badan nimcay intii aadina hooy nimcay waxay maalinta adiga lagu xaday samsam shakiga iyo xumaanta aa ka qabay aniga maba korinaynin meel baa ii korinaysay meeshaasaan xanaanada ay jirtaa marka isbuuciiba hal mar aa liisoo daaya marka aniga guriga fasax u leeya hadda daawacay kuleejka si kasta u wacay waxaa la yidhaha maya layma soo fasaxayo lay wiigeeda ha soo dhammaysato waa imtixaan u tago meesha aan ugu aado maya waa meeshaas lama aadi karo because ani xitaa layma ogola inaa aado inay iyada xanuunsan tahay ma ogiin aniga adigaa joogna maaha